Sheekada tobnaad, tobankii balaayo ee Ilaahay ku salliday Fircoon. Muuse iyo Haaruun waxay u tageen Fircoon, waxayna ku dhaheen Ilaaha reer banu Israa'iil wuxuu ku leeyahay, dadkayga ha laga qaado gumaysiga hana la fasaxo. Fircoon warkaas ma uusan ka dhagaysan, oo halkuu ka sii dayn lahaa Israa'iiliyiinta wuxuu ku sii khasbay shaqo adag oo ay ku dhibtoodaan. Fircoon wuu diiday inuu dadka Israa'iiliyiinta fasaxo, kadibna Ilaah wuxuu ku soo diray 10 balaayo oo kala daran. Balaayooyinkaa dartood, Ilaah wuxuu tusay Fircoon inuu isaga iyo asnaabta ay Masaaridu caabudayso ka awood badan yahay. Ilaah webiga Niil wuxuu ka dhigay dhiig socda, laakiin weli Fircoon kuma quus qaadan, mana uusan fasixin Israa'iiliyiinta. Ilaah wuxuu ku soo diray Masar oo dhan rah. Kadib Fircoon wuxuu baryay oo ka codsaday in Muuse uu raha ka kaxeeyo, laakiin markay rahii oo dhan dhinteen, Fircoon qalbigiisii ayaa sii adkaaday oo wuxuu diiday inuu Israa'iiliyiinta fasaxo. Ilaah wuxuu u soo diray injir badan, haddana wuxuu u soo diray tuqsi ama tirxi. Fircoon wuxuu u yeeray Muuse iyo Haaruun kuna yidhi, haddii aad joojisaan balaayooyinkan, dadkiina waan fasaxayaa. Muuse ayaa duceeyey, kadibna Ilaah wixii tuqsi ahaa wuu ka kaxeeyey Masar. Laakiin Fircoon qalbigiisa ayaa sii adkaaday oo wuxuu diiday inuu Israa'iiliyiinta fasaxo. Markii ku xigtay, Ilaah wuxuu soo diray xanuun dila dhammaan xoolaha ay lahaayeen Masaarida. Laakiin Fircoon qalbigiisa ayaa sii adkaaday oo wuxuu diiday inuu Israa'iiliyiinta fasaxo. Kadibna Ilaah ayaa ku amray Muuse inuu cirka u tuuro dambas isagoo jooga Fircoon hortiisa. Markuu sidaas sameeyey Muuse, xanuun xun ayaa maqaarka Masaarida ku dhacay, laakiin waxba kuma dhicin Israa'iiliyiintii la nooleed iyaga. Fircoon qalbigiisa ayaa sii adkaaday oo wuxuu diiday inuu Israa'iiliyiinta fasaxo. Intaa kadib, Ilaah wuxuu soo diray baraf burburiyey dhammaan beerihii Masaarida, dilayna qof kasta oo bannaanka u soo baxa. Fircoon ayaa u yeeray Muuse iyo Haaruun kuna yidhi, waan dembaabay, hadda waan fasaxayaa dadkiina. Kadibna Muuse ayaa duceeyey, barafkiina wuu joogsaday. Laakiin Fircoon wuu dembaabay mar labaad, qalbigiisana wuu sii adkaaday oo wuxuu diiday inuu Israa'iiliyiinta fasaxo. Kadib, Ilaah wuxuu Masar oo dhan ku soo diray ayax. Ayaxiina wuxuu cunay dhammaan wixii miro ahaa ee aan barafku baabi'in. Kadib, Ilaah wuxuu soo diray madow 3 maalmood socday. Waxay ahayd madow sababay in Masaaridu gurigooda ka bixi waayaan, laakiin iftiin ayaa ka jiray meesha ay Israa'iiliyiinta ku noolaayeen. Xitaa markii 9 balaayo ay dhaceen, Fircoon wuxuu diiday inuu Israa'iiliyiinta fasaxo. Tan iyo markuu Fircoon diiday inuu dhagaysto Muuse, Ilaah wuxuu qorsheeyey inuu soo diro balaayadii 10aad ee ugu dambaysay. Tanina waxay bedeli doontaa maskaxdii Fircoon.